السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناسن داود ee ku soo dhawaada barnaamijkani aan kaga hadli jirnay taariikh nololeedka fanka Bollywoodka haddii ahaa lahayn atoora caana ama atriisha caana iyagu ku koonfurta India. maantana diirada waxay noo saarnay Anthony inaan kaga hadalno atriishada labada jecel yahay cid kale ma aha waa Kajal Mukherjee. Kajal Mukherjee waxay dhalatay 5 Agoosto 1974. Kajal Mukherjee oo haatan lagu magacaabo Kajal Devgan 5 Agoosto ayay dhalatay waxayna ku dhalatay Bombay, Maharashtra. Kajal Devgan aabaheeda waxa lagu magacaabaa Shamu Mukherjee kaasoo ahaa jiray daaradar iyo qoraa iyo maalgeliye shirkadda Bollywoodka ka tirsan. Kajal hooyadeeda maxaa lagu magacaabaa Tanuja, iyadana waxay ahaa jirtay atriisho bariisamaadkii. Kajal waxaa la dhalatay gabar lagu magacaabo Tanisha Mukherjee taasoo iyadana fanka Bollywoodka soo gashay laakiin heer rashid fanka ka gaartay weli kamaysa gaarin. Kajal waxay ilma adeer laxmi yihiin atriishada lagu magacaabo Rani Mukherjee iyo aktarka doorka xumaanka matala Monish Bell ee Soomaalida u taqaano Santaag ama Jirjir ayay ilma adeer yihiin. Kajal Mukherjee naanaysteedu waxaa lagu yeeraa Kaju ama Kadis. Kajal dhererkeedana waa 1.61 sida haatan u diiwaan gashan. Kajal Mukherjee miisaankeedana waxa u dhaxeeya 57 kiilo ilaa 60 kiilo inta u dhaxaysa. Kajal Devgan waxyaabaha kale oo aan ka soo qaadan karno waxaa kamid ah bilowgii nolosheeda. Waxbarashadeeda Kajal meel qabyaha ayay kaga tagtay oo ma is dhamaystirnin. waxayna wax ku baratay iskuulka lagu magacaabo St Joseph Contact School oo ku yaala deegaanka loo yaqaano Banjali oo Maharashtra ka tirsan. laakiin Kajal كولج ما يقدبن وحبرشة مال قبيعة أي كتكتي أما با ضرب أو أي سمسي وحبرشة إدل ويساق هرتي دابا ديال Kajal Devgan وحيابها كلا أنك سوق قادم كرنا وحكم ذا Kajal إني آدي أدو جعشهاي وحخرنتا إمركي جانس كيستو جعشهاي إني وحخرسو وحيابها كلا أدو جعشهاي Kajal وحكم ذا إني الدنيا عربت قادتو جعشهاي إني وح كعنتي ذا كتشو Kajalنا وحيابها كلا أنك سوق قادم كرنا وحكم ذا فيلم داوشة مركلي هذا وحي أدو جعشي آدي أدو حيسسا فيلم كشولاي كاسو فنك هندية أدوغون في أما فيلمك يقولون هندي أبد إسمين وياي فيلمك شولاي إيو فيلمك جلباس كاسو هجامي كها سندور راجنيكانتي سرديفنا فيلم كاسي لبدو رأيكم متريسي Kajal وحي أدو جعشهاي لبضاس فيلم Kajal لنك هوليوود كمركان أيقننا وحي تاقرتها فيلمك كاسابلانكا داوشيديسي aadi inay u hesho in ku raaxaysato marka ay Janice haysato iyo filimka lagu magacaabo Iron Man 3. Kajal waxyaabaha kale aan ka soo qaadan karno waxaa kamid ah marka la yiraahdo daartarada dhanka shaqada inay aadi u jeceshahay daartarka lagu magacaabo Aditya Chopra kaasoo u sameeyay filimkii classic ahaa ee Dilwale Dulhania Le Jayenge kaasoo in ka badan 25 sano tiyaatarada saarnaa magacii maamuus iyo maqaam saran ay ku gaartay Kajalna waxaa la sheegay inay jeceshahay inay dalxiis u aado Switzerland, UK iyo Dubai iyo goobaha intaasna wuxuu ahaa hordhaca Kajal. haatanna aan gudagalno bilowga fanka Bollywoodka markay soo gashay. Kajal waxay ku soo caanbaxday filimka Bequdi 1992 kaasoo ahaa filimkeedii ugu horeeyay ee ka soo muuqato balse waxaa xusid mudan daawada filimkaas Bequdi Kajal magac iyo maamuus iyo aqoonsi buuxda kuma helin balse aqoonsi buuxda waxay ku heshay Kajal filimkii Basigar kaasoo isla sameeyeen aktarka Shah Rukh Khan. wixii intaa ka dambeeyna Kajal gadaal ma soo fiirnin ee hore ay u socotay. Kajal Devgan waxaa la sheegayaa markii ugu horeysay Ajay Devgan ma isla shaqeynayeen 94 duubista ee socda filimka Gundaraj. Kajal Ajay Devgan inaysan ka helin balse shaqada wax dhaafsiisanna inuu sugu imaan jirin. waxaana xusid mudan Kajal Ajay Devgan filmo badan inay isla sameeyeen. filimada isla sameeyeen waxaa kamid ah Gundaraj, Dil Kiya Kare, Pyar To Hona Hita, Raju Chacha, Ishq iyo Yumi Orham iyo Tanaji The Answer Ware. Kajal wixii intaa ka dambeeyna Ajay Devgan aadi ay isku fahmeen xiriir hoosana ayaa ka dhaxeeyay. xiriirkana saxaafadda lama wadaagi jirin labadooda. Kajal Ajay Devgan ka hor waxay saaxiib la ahayd aktar lagu magacaabo Jay Mehta kaasoo ku jira filimka Mafia balse xiriirkooda ma sii noqonin mid muxuu ahaaye miro dhala. Ajay Devgan iyo Kajalna jaceylkooda iyo xiriirka ka dhaxeeya wax filimada ay ku soo bandhigeen oo aadka loogu dareemay waxaa kamid ah filimka Ishq oo la daawaday 1997 iyo filimka Pyar To Hona Hita. filimkaasi Ajay Devgan iyo Kajal ay ku soo bandhigeen jaceylka labadooda ka dhaxeeyay in uu yahay mid aan la qarin ka ogtahay daawada. filimka Ishq Ajay Devgan fargalka oo siinay ama faraantiga oo siinay Kajal Mukherjee in uu yahay faraanti hadiidahan Ajay Devgan oo ugu talagalay asman Kajal ilaa ay hadda farteeda ayuu ku jiraa oo Ajay Devgan ayaa hadiidahan u siiyay inkastoo doorkaasi uu ahaa matal laakiin haddana si dhaba ay fargalkaasi ilaa ay hadda ay u haystaa Kajal Mukherjee. ugu dambeyntii xiriirka labadooda ka dhaxeeyay iyo jaceylkii labadooda ka dhaxeeyay waxa uu miro dhalay 1999 24 Febraayo 1999 Ajay Devgan iyo Kajal ugu dambeyntii
way isguursadeen lamaanahan nolosha way ku midoobeen waxa uu jooga wiili gabar kuwaasoo lagu kala magacaabo Nysa Devgan iyo Yog Devgan. Ajay Devgan iyo Kajal gabadhooda curda ee lagu magacaabo Nysa Devgan waxay dhalatay 20 Abriil 2003. Ajay Devgan iyo Kajal wiilkooda yaraanka ahna ee lagu magacaabo Yog Devgan waxa uu dhashay isna 13 Sebtembar sanadkii 2010. Kajal filimada lacagta ay ku disana waxa kamid ah inay halka filim ku disay Kajal Devgan 10 karoor waana ku dhawaad 1.34 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Kajal aabaheeda waa reer Bengali hooyadeedna waa reer Maharashtra. Kajalna waxa la sheegayaa inay aad iyo aad uga hadli karto luqadda Maraathiga. Mise ogtahay daawada Kajal iyo aabaheeda inay kala tageen iyadoo yar kadibna Kajal waxa soo korsatay ayeeyadeeda. Intaasi waa Kajal iyo nolosheeda gaarka. Haddana aan galno Kajal markay fanka Bollywoodka ku soo biirtay iyo biladaha ay ku guuleysatay. Kajal shirkadda Filmfare Awards ay ku guuleysatay 5 jeer qaybta atriishada ugu wanaagsan. 5taas oo kala ah inay ku qaaday markeedii ugu horeysay filimka Dilwale Dulhania Le Jayenge atriishada ugu wanaagsan waxaana uu xigay filimka Kuch Kuch Hota Hai kaasay idna markii labaad ay qaadatay atriishada ugu wanaagsan ama Best Actress Awards waxaana uu xigay inay qaadatay filimkeedii Kabugushi Kabigam markeedii saddexaad qaybta atriishada ugu wanaagsan. waxa kale xusid mudan inay qaadatay filimkeedii Fana kaasay la qaaday American 2006 taasay ku guuleysatay atriishada ugu wanaagsan. waxaana xusid mudan filimkaadii My Name is Khan inay Shah Rukh Khan kula qaaday atriishada ugu wanaagsan. Kajal score kale ayaa u yaala oo iyada u gaar ah waana atriishadii ugu horeysay ama qofkii ugu horeeyay oo dumar ah ama haweeney ah ee ku guuleysata qaybta laadarada ugu wanaagsan. scorekaasna waxa uu yaala Kajal waxa ay ku qaadatay filimkeedii Gupta. Kajalna markay qaadatay markeedii shanaad qaybta atriishada ugu wanaagsan waxa ay soo qabatay habareerteeda Nitu taasoo iyada u gaar ahayd oo haysatay atriishada ugu badan ee ku guuleysata Best Actress Awards ee shirkadda Filmfare Awards ee bixiso. Ogowna daawada Kajal fanka markii ku soo biireysay inay jirtay 16 sano. waxyaabaha kale oo Kajal Devgan aan ka soo qaadan karno waxa kamid ah intii la duubay filimka Kabugushi Kabigam Kajal inay ilmo ka soo halaaween. wixii intaa ka dambeeyna Kajal waxay go'aan ku gaartay inay joojiso. ogowna daawada inay muddo 5 sano ku dhawaad fanka ee ka maqneed Kajal waxayna dib ugu soo ragaal celisay ku soo noqotay filimkii Fana kaas isla sameeyeen aktarka Amir Khan. Kajal waxyaabaha kale aan ka soo qaadan karno waxa kamid ah Kajal ama scoreku u yaalo ma ogtahay filimkeedii Dilwale Dulhania Le Jayenge inuu saarnaa in ka badan 25 sano ama ku dhawaad inuu saarnaa tiyaatarka loo yaqaano Marathi Mandir. filimkeedii Dilwale Dulhania Le Jayenge scorekaasna waxa uu yaala atriishada Kajal Devgan iyo aktarka Shah Rukh Khan. Dilwale Dulhania Le Jayenge waxa uu noqday filimkii ugu waqti dheer ee tiyaatar saarnaada kaasoo in ka badan 25 sano ku dhawaad saarnaa tiyaatarada. Kajal jilinkeeda iyo waxqabadkeeda iyo heerka maanta fanka Bollywoodka ay ku leedahay lama soo koobi karo. xataa dawladda Hindiya ayaa sanadkii 2011 ku aqoonsatay waxayna ku guuleysatay bilada lagu magacaabo Padma Shri Award kaasoo la siiyo muwaadinka Indiyaanka ah waxqabadka wanaagsan waana bilada afraad ee ugu darajo sareysa. bilada lagu magacaabo Padma Shri Award ayaa 2011 dawladda Hindiya guddoonsiisay atriishada Kajal Devgan. hadda dib aan xasuusino filmadii caanka ah ee ka soo muuqatay filimkeedii ugu horeeyay la daawada 29 Beequdi Basigara u xigay filimada kale caanka ka soo muuqatay Kajal Devgan waxa kamid ah Yeh Dil Lagi, Karna Arjun, Gundaraj, Haljal, Gupta, Ishqi, प्यार तो डरना किया, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, दिल किया करे, हम आपके दिल में रहते हैं, राजू चाचा, कुछ खत्ती कुछ मिठी, कभी कुछ कभी गम, फना, My Name is Khan, Itanaji. iyo filmo kale oo caan ah. waxyaabaha kale oo Kajal Devgan aan ka soo qaadan karna waxa kamid ah Kajal khamriga miyay cabtaa waa maya jawaabtu. Kajal sigaarka miyay cabtaa waa maya. Kajal cunto karinta ma taqaana sida ay sheegtay. Ajay Devgan markii isguursanayeen waxa uu sheegtay in aanan si fiican u garanayn cunto karinta maxaa yeelay Kajal Devgan iyadoo yar ayay kala tageen aabaheeda iyo hooyadeeda kadibna ayeeyadeeda ayaa soo korisay oo waxay ahayd ay koris saas darteed Kajal maba isku sii taxluujinanba inay barato cunto karinta. Kajal Devgan macluumaadkeeda lama soo koobi karo balse annagoo ka soo qaadanay qeybaha ugu muhiimsan intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa macluumaadkii ku saabsanaa Kajal Devgan. barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmayno waxaa idinkaga tegi doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
ku xidhnow markasta kalana soco wararkii ugu dambeeyay kuwaasoo xaqiiqda ku salaysan kuna saabsan atooro walba fanka Bollywoodka ka tirsan iyo kuwa koonfurta Hindiya. haddii ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan atooraha adiga aad taageerto ama atriishada aad faniska u tahay ugu imow YouTube channelkeena taariikh nololeedka min bilow ilaa iyo dhamaad kalana soco actor kasta filimada uu soo wado iyo kuwa hadda shaqada ka hayo. waxaan diyaar u ahay codsigaaga mar walba inaan tixgeliyo. fadlan haddii aad tahay markii kugu horeysa aad soo booqato YouTube channelkeena subscribe inoo saar, like waa inoo muhiim, share-tana waa inoo muhiim. daawada aad baan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo aad mar walba nala falgalaysid. halkaad kala soconaysid waa YouTube channelkeena. xukumo si baahidaada iyo xog walba aad doonaysid aan kugu soo tabiyo.